السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا عنا ونكسن ومضى الصوماليات runtii aad u mugaysan oo aad u dhibaataysan dareenkeeni waa la qiibsanaynaa wixii ku dhacay musiibadii ku habsatay dhibaatadii loo geystay runaantii waa la qiibsanaynaa waa la murugoonaynaa waa la tiireeysanahay runtii dadkii meesha iyada naftoodii ku waayay Allah u naxariisto inta dhimatay waxaa laga maarmaan ah inaan sheegno waxaa laga maarmaan ah wixii aan soo ogaanay markaan muxuu ahaa baaris dheer aan sameynay musiibadii dhacday waa laga maarmaan inaanan qarinin ruuxii dhibaatadan geystay muxuu ahaa wuxuu ahaa iyo wuxuu ka shaqayn jiray iyo eedu ahaa inaan ummadda Soomaaliyeed aan u cadeyno xaq baan u leenahay cid aan ugu heebaysanin haba yaraatay malahan qaraxan waxaa sameeyay nin Soomaali ah magac Soomaali wato oo reer Muqdisho ah oo hadduu Ilaahay ku roon yahay waqtiyadii dambe hadda la joogay wuxuu ku noolaa magaalada Hargeysa ayuu ku noolaa magaalada Hargeysa ayuu ku noolaa laba xaas buu lahaa labadiisa xaas waxay ku nool yihiin magaalada Hargeysa ninkan Saacid baa yiraahdaa ninkan nafti halligaha ah ummadan laayay wuxuu ahaa waagiisii hore al-shabaab ayuu ahaa uu kana soo goostay waxa soo dhaweeyay abaanduulihii waqtigii Sheekh Shariif ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la dhihi jiray Geelaruush ninkii la dhihi jiray qofkii yaqaan wuu yaqaanaa Geelaruush waa nin habar gidir oo sacad ah oo raahilowla ah oo la yaqaano ayaa soo dhaweeyay ninkan waagiisii hore markuu ka soo goostay al-shabaab asaga soo dhaweeyay asaga muxuu ahaa xil u dhiibtay in badan oo kamid ah saraakiishii asaga la shaqayn jiray hadalladii uu dhihi jiray waxa kamid ahaa wadankan haddaan kitaabka Ilaahay lagu xukumin hormar ma gaarayo wadankan haddaan kitaabka Ilaahay lagu xukumin hormar ma gaarayo saraakiishii uu la shaqayn jiray baan ilaa halay wada hadlaynay waxay ii sheegeen mar walba wuxuu rabay inuu anaka nagu shahiido war anaka kitaabka noo dhiman muxuu yahay buu yiri ninkii sarkaalka halay aan wada hadlaynay war anaka muslim baan nahay waa tukunaa waa soonnaa waa salaadnaa dalkeeni baan heegan ugu jirnaa inaan dadkiisii aan badbaadino wuxuu dhihi jiray wadankan haddaan kitaabka lagu xukumin ninkan hooyadiis waa Isaaq hooyadiis waa Somalilander maamulkan Somaliland ayuu ka soo jeedaa hooyadiis waa Isaaq labadiisa xaas waxay joogaan magaalada Hargeysa joogaan in badan oo kamid ah markii ninkaas banduulaha xilka laga qaaday wuxuu u wareegay magaalada Hargeysa ayuu u wareegay waa nin muxuu ahaa beesha habar gidir ah oo sacad ah oo raahilowla ah waxaa la yiraahdaa Saacid la yiraahdaa qofkii aan ogeyn oo ha ogaado sababtoo inaan wax qarino nagama suurtoodo anaga waa sheegaynaa wixii shalay meesha ka dhacay baa wax walba ka weyn inaan cadeyno xaq musiibadii shalay meesha ka dhacday mid la qarin kara ma ahan garaashka laga soo diyaariyay horey baan idinkugu sheegay garaashkii oo Saybiyaana garaash ku yaalo oo Ismaan Caata lahaa ayaa lagu soo diyaariyay qaraxa ma garad meelaha lagu marmeeraysiin waxaa la yiri nashuusintay ku nabto ayay nabiga kaaga hormartaa waxdaladoodii maalmahan waxaan arkaa anakana lagu soo duulay anakana la laayay qaraxana waxa loola damacsanaa meesha loo waday waxay ahayd ma ahayn number 4 iyo zoobo looma wadine qaraxa waxa loo waday laga bilaabo Trebiyaano ilaa iyo madaxtooyada ayaa loo waday in ummadda meesha iyada ku nool askarta leh shacabka leh ganacsatada leh in lagu gumaado ayaa la rabay laakiin waqtigii oo la gaarin baa qaraxii waqtigii waa ku simi waayay god khiyaana xaqoodin hadaa qodidna waxa igu maqaalaa inuu adeerkiis ku dhintay Saacid ninka la yiraahdo oo qaraxan sameeyay adeerkiis inuu ku dhintay oo laba kamid ah walaalihiis inay meesha iyada ku halligmay oo dhinteen ما قرت
inay meesha ku dhinteen baan idin sheegayaa khasaarihii meeshii lala rabay meelaan ahayn buu ku dhacay xaruntii beeshii buu ku dhacay beeshii haldoorkeedii baa meesha ku dhintay kuma faraxsanin runtii kuma faraxsanin wallaahi oo bilaahi tallaahi inaanan ku faraxsaneen yaa aniga kuma faraxsanin ma fahamta warkaygu sababtoo ah soomaali dilkeedii ma aha midaan ku farxi karo damiirtayda ima siinayso dadka dhintay inaan ku farxo laakiin waxaan idin sheegayaa meesha khasaaraha ka dhacay waxaa waaye waxaa u badan ninka dhibka geystay qaraabadiisii baa u badan haddana waxay suuqu soo geliyeen qaraha dawladda ka dambaysay in annaka nala laayaa la rabaa halay nin baan la hadlay oo runtii saaxiibo aan nahay oo beesha ah ayaan la hadlay wuxuu ii sheegay qaraxa annakana loola dan lahaa annakaa la rabay war qarax meeshiisii buu gaari waayey meeshii aad la rabteen buu gaari waayey ma garat qaraxa meeshii aad la rabteen wuu gaari waayey laakiin aad iyo aad baan ugu xumahay aad iyo aad baan ugu xumahay aad iyo aad baan ugu xumahay beeshu waxaan leeyahay haddii fiqi hadalkiisi iyo mahad salaad aad fulinaysaan adeer yeelow meesha iyada idinkama jirto gaariga qarax lagu fuliyeyna shirkad ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee magaalada muqdisho ka shaqeeyo iyo Soomaaliya dhan oo xawaaladaha ah ayaa iska leh shirkad ka mid ah leh gaariga qarax lagu fuliyey waxaan iska leh ninka qarax fuliyey seedigiisii baa gaariga leh ninka qarax fuliyey oo beesh habar gidir ah oo sacad ah oo reehilowla ah ina seedigiisii baa iska leh seedigii ayaa iska leh ma garat gaariga shirkadda yani muxuu ahaa shirkaddaas ayuu u shaqeeyaa ninka gaariga iska leh shirkadda daabshiil ayuu u shaqeeyaa afkeen inaan ka qarino xaq umaba lihinba ma garat ma dhihi karno anaka yani muxuu ahaa shirkadda ka dambaysay laakiin gaariga in meesha iyada ah laga leeyahay baan caddaynaynaa waxaan qarinayna ma lahaba yaraatee walaalayaal marka inta dhiminta allah u naxariisto laakiin waxaad ogaataa qarax waxaa loo waday Trebiano ilaa iyo baarlamaanka ilaa iyo madaxtooyada ayaa loo waday waqtigiisii oon gaarin ayaa meesha iyada ku qarxay waqtigii oon la gaarin ayaa meesha ku qarxay yaan waxba la qarinin hubkii yani muxuu ahaa salbalaar laheed ayaa gaariga ka wada buuxay bambooyinkii ruushka sameeyey oo yani 1900 eberkii la sameeyay oo iyagoo expire ahaa ayaa ku jiray wax aanan ku jirin malahan hubka markii ninkan la qabtay wuxuu yiri nin ganacsato ah oo beesha ah ayuu sheegay ayaa iska la buuri markii muxuu ahaa alaabtan shidaalkan adduunyada asaga iska la buuri inta dhimata Allah u naxariisto waxaan idin leeyahay walaalayaal qaraxa ninkaas ka dambeeyay abaandulahaas halaga waraysto abaandulahaas ninka aad u yaqaano taariikhdiisii geelaruush hala waraysto geelaruush oo ahaa abaandulihii ciidamadii xoog dalka Soomaaliyeed waqtigii Sheekh Shariif halaga waraysto waad mahadsantiin aniga jaanis fara badan ma hayo inaan arrintan aad u faahfaahiyo waan rabay laakiin dib ayaan idinku faahfaahin doonaa waad mahadsantiin hala sheer gareey barnaamijka la isgaarsiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh